kusoo dhawaada channelkayga aad uga barateen sida online-ka lacag loogu sameeyo sida looga shaqeysto. Maanta waa video cusub waxaan kaga hadli doonaa website-kan oo ujeedin loo dhahay Doge House site allaha. Waa website rubi ah ani shalay aan waxaa kagala baxay hal rubi waana ku tusi doonaa caddeynteeda aan la baxay rubigaas. Marka asxaabta waxaan leeyahay video-ga like noo saara kuwa hadda nagu soo biira channelkeena waxaan leeyahay subscribe noo saar video noo like gareeya sina share gareeya asxaabteena kale la wadaaga. waana kana channel ii sheegay website-ka aan ii sheegi doono Doge House laba qaabood u shaqeyn doona qaab sidaan u jeedii investment ah withdraw investment ah iyo qaar bonus ah oo ii sheega markaad isdiiwaan gelinaysa bonus ku sii doono oo ii sheega bonuskaas ku socon doono. sababta inta qof ay ku jirta website-kan waa 2892 qof lacagahana u jeedin. sababta marka website-kan sida tan u shaqeyn doona caddeynteedana waan tusi doonaa lacag sidaan uga baxay. website-ka qaabkiisa saan waaye u jeedin qaabkiisa saan waaye. haddii gadaan u degno sida la isku diiwaan geliyo aan fiirino marka koowaad aad soo gashay channelka ama waxaa leeyahay marka koowaad soo dejiyo website-ka waxaa ku dhufan doontaa meeshaan la dhahay registration marka ku dhufatay soo diiwaan gelisay meeshaan haddana waxaa kusii dhufan doontaa internet ay ku qoran tahay oo ah login haddaa arki jirtay tanna waa sidoo kale iyaduna gelitaan waaye. marka asxaabta horta kanaan ku bilaawi doonaa insha allah. asxaabta website-ka marka koowaad wuxuu ku saari doonaa sida tan oo ah Russian haddaa rabto inaad iska bedeshay. asxaabta waa ujeedii marka Russian waa iska bedeli doontaa meeshaan haddaa rabto inaad taabatay meesha saddex xariijin ku qoran laakiin aniga inkastoo ay iga tahay saddex xariijin ku dhufan doontaa sida markaan ugu dhufto ani sida tan ku saari doonta translate-ka waa ku jeedaan translate ku dhufan doontaa luqadda rabta ama Soomaali ha ahaato ama English ha ahaato waxaa rabtaa ka dhigan doontaa. marka asxaabta marka koowaad waxaa gelin interlogin wuxuu ka wadaa magaca uu koowaad ama user-ka koowaad gelin doontaa email-kaaga gelin doontaa meeshaan password-ka meeshaan ka tagi mar walba inaad saartay waa la rabaa tigta kabacdi create account aad dhihi doontaa insha allah. markaa create account tiraahdo waa kasoo bixi doontaa wuxuu ku geyn doonaa isha login-ka markaa sida hadda aan tusayo login-kan gali doonaa ani inkastoo aan soo diiwaan geliyay waa kana meeshaan ku dhufan doonaa ujeedin mar walba anisha luqadda waa bedeli doontaa English ka dhigan doontaa. sababta marka inkastoo Russian uu yahay Russian-ka badanaa luqadooda uu tahay marka asxaabta waxaan ku dhufan doonaa meeshaan ku dhufan doonaa ujeedin asxaabta sida tan ku saari doonaa. marka asxaabta marka wuxuu ku dhahay magaca marka hore ku soo gashay email-ka ama email-ka marka hore soo gelisay meesha geli doonta email or login iyo password-ka meeshaan waa taaban doontaa intaas sii taabanaa meeshaan waxaan u dhufan doonaa asxaabta mar hore aan is soo diiwaan geliyay marka is soo diiwaan gelisiin aad ugu dhufan doontiin markaas ka bacdi waxaa ku dhufan doontaa meeshaan u jeedin login ay ku qoran tahay login marka ku dhufatay sida tan website-kan kugu soo bixi doonaa dashboard-kiisaan tagi doonaa website-ka. marka asxaabta caddeyn badan aan iga tusi doonaa website-ka insha allah inuu lacagta la baxay shalay tan inaan lacagta la baxay weliba galabtii waa u jeedinaa asxaabta 0.65 rubi inay igu jirto oo aan hal rubi iyo waxaan la bixiray 60 ilaa laakiin waa iga diiday wuxuu dhahay hal rubi ugu yar bixitaanka halka rubi aan la baxay 60-ka u jeedin waa iga diiday 65 tan meeshaan iskaga tagay waa u jeedinaa asxaabta inuu la had shaqeynayo website-kan mar hore isdiiwaan geliyay inkastoo aan iga fiir rabay aan iga tijaabin rabay lacagtiisa inuu runtahay in kale meesha u jeedin asxaabta waxa waaye ii sheega meesha lacagta mining ku shaqeyn doonto meesha u jeedo lacagta mining meesha kaaga shaqeyn doonto ama haddii ii sheega niisi sheego sida kale nagu sheego waa meesha lacagta markaad ii sheega lacag soo dhigatay meeshaan investment markaa samaystay waa meeshaan ii sheeg ku soo geli doonto meeshaan inkastoo hadda English ahayn English-ka waa socdaa waa ka dhigaynaa insha allah. waa u jeedin asxaabta English-aan taabtay waa wareegsanayaa marka asxaabta meeshaan u jeedin waa meesha lacag la bixitaanka wax walba English ahaan ugu tusi doonaa laakiin inkastoo aan xoogaan kasii waa niis faahfaahin doonaa. marka asxaabta English-kaas aan igu tusi doonaa marka video-ga la socdaan dhihi lahaa step by step video iyo la socda video nolol gareeyaan dhihi lahaa asxaabta
asxaabta waa ujeedii meeshaan tap up waa lacag dhigasho si walba baayeeraa lacagta kaga dhigan doontaa insha allah. asxaabta meeshaan ujeedii tap up waa lacag dhigasho ama deposit u taqaatiin. meeshaan buy out waaye lacag la bixidda. shalay lacagtan kula baxay waa ku tusi doonaa sidaan horni u sheegay. haddana meeshaan labadan meel ujeediin waa lacag la bixid iyo lacag dhigasho. lacag la bixid oo kula baxaysa weliba baayeer wax kale ma lahan, baayeer iyo KSP iyo waxaas leeyahay. laakiin inkastoo anaga aan isticmaalno baayeerkaasaan ugu roon. labadaas waa asxaabta. marka meeshaan horaan kugu sheega markay kuu noqoto ii sheegaa hal click profit aad dhihi doontaa. markaas kuu gelay sheegaaye intaa ujeediin income periday ay kuu geli doontaa. meeshaas akoonka ay kuu geli doontaa. meeshaan ujeediin waa incoming periday. saacad walba waxaa qaadan doontaa 0.0 rubi. maalin walbana waxaa qaadan doontaa 0.07 rubi. aniga wax aan diiwaangeliyey ma lahan, macnaha lacag deposit aan ku sameeyey sheega. maalin walbana week walbana waxaa qaadan doontaa 0.47. bil walbana wuxuu dhahay 0.2 sheegay 0.2 aa qaadan doontaa. asxaabta meeshaan kalena ujeedi waa referral. dadka kale dadka aa u sheergaraysana lacag waa ka samayn doontaa insha allah. meeshaan referralka lacagtiisa ay kusoo geli doonto waaye. meeshaan ujeediin asxaabta saddexda nooc aan kugu sheegay mar hore inuu leeyahay. saddexda nooc inuu leeyahay mar hore oo kala ah baayeer oo baayeerkayga ah iyo kuwii iyo isha money. marka anaga waxaan isticmaalaa inkastoo aan baayeer isticmaalin, baayeerkeena meesha noo yaalo ujeediin asxaabta. marka maxaa meeshaan imaan doontaa. marka meeshaan ujeediin waa profilekaaga. meeshaan profilekaaga waaye. meeshaan ujeedii meeshaan profilekaaga waaye. meeshaan referralka waaye. meeshaan sitika waaye. linkiga waa meeshaan websiteka servicekiisa waaye. cashback bonuska waaye. bonus waa kana daily bonus waaye. marka profit college-ka waaye. kana boorsada exchange-ga waaye. la bixidda waaye. lacag dhigashada waaye. marka asxaabta waxaanan ujeediin waa sheegay waa websitekiisa u kala shaqeeyo, qaabihi u kala shaqeeyo. marka waxaan rajeynaa websiteka inaad ka faa'iideysan doontiin. waxaan tusi doonaa caddeyntii aan shalay kala baxay waana ku tusi doonaa asxaabta. marka ay sheegay waa ujeediin 0.02 inay ugu jirto meeshaan baayeerka shalay aan rubiga lacagta inta isoo gasho waaye. asxaabta halkii rubi wuxuu dhigmaa 0.02. marka waa ku dhufan doonaa rubigan ku dhufan doonaa. ujeediin shalay 11 Agoosto 2022 weliba xilli maqribtinimo ah inaan la baxay lacagtan u dhawey 18 iyo 14 daqiiqo ahayd. Agoosto waa ujeediin xilligeeda weli waa kusii tusi doonaa. cadeen kalankaasii tusi doonaa. asxaabta meesha maxaa ku qoran Ismaan Axmed Aadan waa username-kan kusoo samaystay Doge House Site. websiteka magaciisa mar hore maxaa lagu dhahay Doge House Site 66 full dhahay. halkan rubiya soo gaaray shalay. waa ujeediin halkan rubiyan inuu soo gaaray Ismaan Axmed Aadan 45 out kulaha Doge House Site. websiteka lacagta lagu soo diray waaye. marka asxaabta ujeediin lacagtii xilligii soo gaartay ujeediin historiga xataa waa kaasii tusi doonaa. waa ujeedaa asxaabta +1 rubi inuu soo gaaray. marka asxaabta videoga loona garaya noo siina sheergara asxaabta kale la wadaaga lacag. aniga waxaan maalgashtay malahan, laakiin adigu waa investment waa ku samayn doontaa. waa ku samayn kartaa lacag badan ka faa'iido doontaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.